رئيس الوزراء إثيوبيا أبي أحمد ayaa sheegay in dalkiisa iyo dalka Soomaaliya ay noqon doonaan hal dal isla markaana ay qorsheynayaan in dhawaan la mideeyo wadamada Geeska Afrika. Warbixintaasi waxaa inoo haya wariyaheena Maxamed Yuusuf. دكتور أبي أحمد رئيس الوزراء دلك إثيوبيا ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in la gudbo ka sheekaynta taariikhda aan wanaagsaneyn waxa uuna markaasi yiri ka hadalka wixii ay geysteen Colonel Mengistu Haile Mariam iyo General Maxamed Siyaad Barre oo labaduba kala xukumayay Soomaaliya iyo Itoobiya in xilligani aysan ahayn kuwa micno badan u soo kordhinaya shucuubta walaalaha ah waxaanu intaasi sii raacay inay qaadayaan talaabo laba dhinac ay markaasi isdhexgal ku sameynayaan midnimada looga dhalinayo labada shacab taasi oo uu yiri waxaanu ka wada hadalnay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo aan isku waafaqnay waxaan isla garanay heshiiskiina dhex maray waxayna ahayd arrimo rajo badan galiyay ayuu yiri waxaan si ku meel gaar ah u yeelan doonaa iskaashi dhaqaale oo dhameystiran inagoo mustaqbalkana mideynayna labada shacab ee Itoobiya iyo Soomaaliya oo u xubsiibinaya hal dal oo mida sababtuna waxa ay tahay buu yiri inaysan wax weyn ahayn